مقلدم وإلهي قف بلا آذنا هي قلدنا إلى إكرا بافكتين ما نقوم كل مركزتا مش أنا حكرا لك إني ضدك ولا له وقرنك إيه فهمي أو سيد خلدن وأركي أما دي أني وفقس خلد ويقدع أمر حي قلد ما يقدعين وهذا الله عن أديك سدوي خلدنا عين صح ويان حربات إلى كرا لك كو بالكيجا iyo asxaabtiisa iyo asxaabteyda iyo dhamaan asxaabta nagu xiran qodan oo yaani sida khaldan oo fahmay oo ilaa shar ilaa xalay igu soo qorayeen xaaligan bixin xaaligan sameeyay waa sax inta markii laga soo tago muhiimadda meesha u soo fadhiistaan waxay tahay case close ina ka dhigtaan wax walba because dad walaalo ah isla soo cayshay oo isla soo waqti isla soo qaatay ayaan nahay iban maanta hadii aan waxna dhexmaraan oo kale waxay ku qurux badan tahay inaad si hoos u xino dhameysano laakiin inaad commentiyo qaldan aad u soo qortaan asaga oo waliba haddana qalbi jab ku sii ah sidoo kale aniga ay soo qortaan yani inay wax kala fogeysan wax ma isku soo dhaweynayso mar walbana waxa ay dhacaan waxa wanaagsan labada qof ee walaalaha ah muslimka in la isku soo dhaweeyo oo maslaxa dhexdooda laga abuuro laakiin ma wanaagsana in hadallo kala fogeyn loo isticmaalo horta maanta laga qof asxaabteeda isku dhacaan ad kana gooni waxa u sheegta kana gooni waxa u sheegta daameen qofkaas waa xaasad ay kala qof wanaagsan maaha waana namiim waa dadku isku jira markii wanaanimo ka dhaxayso wanaagga dhaxeeyo asxaabnimo ka dhaxayso la isla soo cayshay maanta intuu guriga tago stiil oo familkeyga oo khanayo anigana sidoo kale aan iskaga warhayno xiriirkaas oo kale si easy kuma baaqayo haddaan soo fogaadan inaan isku xisno aan si jeclaano iska warhayno moogii marta in la kala go'o ma noqonayso ilaahay baan ku markaa taas insha Allah qayb ay noqonayso waxay ka codsanayaa please intaas ku joojiya qalad uu dhacay oo laga soo laabtay walaalkii dhammaan familka iyo asxaabta igu xiran waa kala gelinaya waan ku soo